السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين أدبادين سلام عيا جارهان مدحونا الصومالي محمد عبد الله فرماج رئيس الوزراء خير waxaan rabaa halkan in yar inaan ka soo jeediyo hadaladeeda kooban waxaan rabaa xaaladda dalka uu ku jiro iyo dhibaatooyinka ba'an ee lagu hayo inaan wax yar ka sheego muddadii madaxweyne farmaajo uu xilka qabtay iyo haatan la joogo wax qabadkii dawladda soo qabatay waxba ku fogaan maayo wax sadar muuqdo su'aal ka dhinay Soomaali tiraahda waxaan rabaa inaan halkan ka xuso dhawaan madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in raaligelin uu ka bixinayo rejiimkii dawladda siyaad bare waxa ay u geystay walaalaha Somaliland waxaan u sheegayaa in rejiimkii dawladda Maxamed Siyaad bare keligood inaysan laynin ay dadkoo dhan laysay dawladdaasi waxaana dawlad military oo dadkan u aabiyeelanayd hadda cid kasta way laysay dawladdii Maxamed Siyaad bare SSDF iyadoo laga wurnaaya dadka majeerteeniga lagu gumaaday iyadoo reerkan la yiraahdo galmudug dago Saleebaan iyaguna SDF iyagoo lagu wurnaaya dadka aad u laysay qolada SNM la yiraahdo Hargeysa joogta laftirkeeda dadka Somaliland oo waqooyi u dhashay aad bay u leynayeen marka Somaliland waxa laayay dawladdii marka talada haysay xukun military haysay kaligoodna ma leeyna Soomaaliya oo dhan haatan madaxweynaha Soomaaliya waxa uu raaligelin buuxda siiyay dadka degan gobolada waqooyi markaan oranayno wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waxaan u arkaa khalad weyn baan u arkaa sababtan idin sheegaya marka la yiraahdo Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlay waxay noqonaysaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ayaa wada hadlay marka hadalkaasi siyaasiyiinta Soomaaliyeed inta badan isticmaalaan waxaan rajaynayaa inay ka fiirsan markay oranayaan Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaysan that is very incorrectable way waa waxa macnaha aad khalad u ah Somaliland dawladdii laysay haatan ma joogto dawlad rayida wadanka haysa raaligelin bayna ka bixisay waxaan rajaynayaa raaligelinta inay qaadatay Soomaaliyana aan la kala jarin Soomaali baa leh Somaliland Soomaali baa leh Soomaaliyana Soomaali baa leh si ay Soomaaliya u kala goodo ma jirto in ay Somaliland good iska daayay waxaan rabnaa inaan soo celino NFD iyo kilarka Soomaalida Ethiopia aadman salaamiya madaxweynaha sharafta leh iyo ra'iisul wasaarihiisa intaas ayaan rabaa caawa khudbadooda inaan kala jeediyo aadman ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maanta soo istaago hadal yar oo kooban ka sheego dadku waxay ugu eedeynayaan sharmaaka dawladda u shaqeeyayo dawladdu taageersan yahay of course dawladdu waa taageersanay waa dawladda kaliya oo aan hubno in ay mushaaraadka xaqa ciidanka iyo xaqa shacabkan iska ilaaliso ciidankana shaqaalahooda siisa raydkan mushaarkiisa